geerida dishaay geedka habbo ku gabraaratada gumaysigu ku dhuunte galabtada xumootay geedkood habbo idana waan aqaan noloshana waan aqaanaa waad garanaysaa raggii kugu helay geed ballaadh baan ahay anugu أما كنا حما كفرح أم بعدنا ينبهي نولالينا ما هني وخد منايا الماء يجوها وايو وطن كيجنا وانقبحنا الديار بانونا هاي شعب كريا وضلنا ورف صدان وروحي أشامني ما يسكتبحو تجني توان سيني ودول كون كذا يا بانكو إلكنا وون كذا يا وحدنا إلهي بو بما شو حنا ينقل هنا مش هذا يسكوكو كايا يمادان الدنيا أنا قو أوضل وأنا ما بحناكو إلا أني كوتم بيا أنتو أرور تادوا أيدو هل كوحان كجهد لنا أن أنا قو جبهة عوالي xoreynta gobolada awdal iyo selil waxaan ka hadlaynaa markaa sistem xumada iyo beenta iyo khayaanada naloola dhaqmay waxa weeye waddanka marxalado fara badan buu soo maray marxaladaha faraha badan leh waxaan lagu heshiiyey in wax la wada leeyahay oo dawlad Soomaaliland la dhiso dawladdii markii la dhisay ee la tafaqiyatii tabatira waxay noqotay dawlad Sacad Muuse noqotay dawlad Sacad Muuse ayay noqotay waxa weeye waxaan wada yeelanay iska daaya wixii aan anagu xaq u lahayn iska lahayn yadadii ahabaanu kala baxsan weynay sida dhulka wajaale wax way haday mashruuc ayagii tahay haday dhulkii danta guud aanu bixinay iskuulada ahay tahay wixii aan anagu xaq u lahayn ayaanu kala baxsan weynay wax aan wada yeelanay oo kale iska badaa marka waxaan go'aansanay waxa way dawladda Soomaaliland maanta isku sheegaysaa waxay ku baxday 7 nin oo SLM ayaa baxay waxa way halgan bay galeen oo waddanka way qabsadeen hadday qabsadeen dabayaaqadii dabadee ka xumeeyeen maantana wax aan wada yeelanayna ma jirto yaana aan nagula yaabin sida ay u baxeen baan annaguna u baxan wixii ay tawdeen baan tabanay adduunkana rag waxa ugu nacasan ninka wixii uu isagu diiday rag ku daya ee ila waan kugu dhaqaya marka ma yeelayno wixii uu diiday Muuse Bixi uu halkaa ka abaaniyay محمود أبسية جيلا وأبانية وحبشتك أباني إيه هالك شركة قحاوتك إيه هالك أوكتك أواري ويحبوا أنك ما تنقول رقم لجود دي إنه نقول يا أبنا ما هبي حتى يلا إنه سافر الجليان ما هدول سافر الجليان وكجون دونا وحنا هذا الكوسو جبينيا جبهة عوالي هل كان ما أنت أي بلودي كوا يدلوا دعاء سماها وحوي وضن كانوا ولا كلاليه هاي حتى نسكت نقوم نسكت موقف نقوين وحوي gobolada yada annaga ka talnayna degdegna hanoo dhaafan hadii kale wixii maanta ka mid meesh Soomaaliland hadaba wax la wada leeyahay sidaas ay ku ahay dadka maanta halka u baxay ee dhibaatooyinka loo geystay halka u taagan ee maanta ka halgabaya gacan baan ku siinaya ururka waa la socdaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh tobantahay bishii waxaa naga go'an inaannu nahay jabhad mucaarada oo ka dagaalamasa awdal iyo selil yaa naga go'aana maanta laga bilaabo Soomaaliland annagaa markii hore ogolayn ogolaasho annu jecelahay baanu Soomaaliland kaga mid ahay maanta waa la nacsiyo waa la nagu kalifay gobol kasta wuxuu leeyahay mujaahidiin iyuu leeyahay gobolada Soomaaliland la yiraahdo dagaalo kala weecsan bay soo galeen mujaahidiinta gobol aan mujaahid ahayn ma jiro gobolka awdal mujaahidiintii soo wax doonaysa maanta koowa way nagu kaliftay waxa naga wakiil ahaa salaadiin odayaal aqoon-yahan albaabada laga xidhay inuu taaba galay hawlna galayo ta kale waxa weeye waxay noqonaysaa in cid kastiba wixiiga raadsato hadayna ku mid ahayn Soomaaliland sidii loo aasaasay hadayna u soconin madda labaad waxa weeye qabiil yar oo habar wala yiraahdo qaybsada wasiirka maaliyadda ka duulista
mid wal oo shaqaale ah shaqaaluhu waa laba qaybood bay isku leeyihiin somalilan iyagaa iska wadanay waxa weeye dadka kale waa qolo ag taagan iyo nin eeganaya waxa weeye markaa nin waliba wuxuu u baahan yahay inuu qabsado weeye haddii laga qaadan waayo hawsha iminka la qaban waayo hawsha caynkaas oo aan la iskugu yeedhi waayo dadka somalilan godkay ku dhacda ninka markii hore diidayey khaladaadka diidi jiray markii horeba ka baxay khaladaadka maanta inuu dadka ugu cagajugleeyo khaladaadku ka baxay oo au dhibta au geystay maantana dadkii ugu yimid meesha u geysto waxa weeye qofku markuu wax soo maro inuu wax qaataa loo baahan yahay markuu dhib soo arkana inuu dhibta qaataa loo baahan yahay iminka dhibna qaadan maayo waa nin qol ku jira oo qolnimadii uun iminka ku nool waxay u baahan tahay marka inuu siyaasadiisa ay furfurbi lahayd ma furfurni albaabku sixir wuxuu noqonayaa nin reer keliya taw taliya madaxweynaha imka jooga wuxuu noqonayaa nin